walaalayaal sida aan noo barateen program badan aan idiin soo daynaa programmadeena walaalayaal waa badan yihiin laakiin marka ugu horeeyo islaamo buraanburacay oo bom lagu rakibay qaramada midoobay oo faraha ka taagtay showbiyoodka carruurta Soomaaliya kusoo foodle dad tahriibayaal badda laqday dowladda Yemen maxay ka damacsan tahay Uhuru Garden oo ku guuleystay madaxweynaha Kenya ay arrimo xasaasi ah iyo waxaan idiin soo daynaa wara Cabdikariim ciyaarta Georgina oo drop this is not my style man. Drop it. Thank you. Dhinacayga waxaa fadhiya General Waawarey waa nin laandheera nin aan baarka sare ka dhalin baahi baa dilay Soomaaliya Maxamedey iyo waxaa dhinacayga fadhiya Abaa Xaaji oo rabo 2020 inuu madaxweyne u tartamo qadka telefoonka waxaa si toos ugu jiro mudane ka tirsan baarlamaanka oo asagana aan wareysi aan la yeelan doono ha yeeshee marka hore waxaan ku hormarayaa General Waawarey General saddexda bilood ee la soo dhaafay Minnesota nala joogtay oo baraf dadka xaqiyay dadku waxay isla dhaxmarayeen moolkan 24ka iyo caramel dadku waxay isla dhaxmarayeen in dhabarka laga soo taabtay arrintaas maxaa ka jiro arrintaas waxba kama jiraan waa ku turkuteena raad ma laha Minnesota waxaan u joogaa haddaan ahay General Waawarey arrimo xasaasiya oo la'aantay aan dhaqaaqay arrimahaas u joogaa nin dhabarka laga taabtana waa ka qiimo badna okay nin la dheeraano asal dhabarka laga taabta waxba kama qabo dhinacii waxaa fadhiya Abaa Xaaji waa nin dhalinyaraha oo kontankii aan gaarin 48 sano soo noo sheegay waaye hadduu ilaahay ku wuxuu ku baxay kulliyadda la foole waa kadib waxbarashadiisa ma sii wadanin laakiin wuxuu ku hanweeyaa inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka 2020ga markuu dowladdan dhamaatay dowladda ku xigta tan ku sii xigta ayuu rabaa inuu noqdo wuxuu rabaa inuu ka hadlo dhaqaalaha ha yeeshee su-aasha taagan ayaa waxay tahay asaga waa ganacsado yar oo foonkaarada dukaan uu leeyahay iyo wuxuu leeyahay home care uu share ku leeyahay maxaa ka bedelaysaa Soomaaliya mustaqbalka Soomaaliya dhaqaalaha iyo Soomaaliya waa wada ognahay xataa cirbad soo ma saarto oo maryaha lagu tasho xagee dhaqaalaha iyo ka imaanaya mustaqbalka 2020ga maadaama arabta madaxweynaha Soomaaliya horta walaal waa mahadsantahay soo dhaweysay aniga waxaan rabaa dalka inaan dhiso in ganacsiga casriga hadda adduunka jiro maadaama qurba joogo muddo 8 dalkii ugu dambeysay waxaan rabaa inaan nidaamkan hadda casriga ganacsiga casriga inaan geeyo qorya meesha jiro sax qoryaan bedelayaa waxaan leeyahay kaalay ganacsada nabad ku ganacsada lacag suubsada guryihiina dhista dariiqiina dhisna airport casri ah dugsiyo casri ah wax walba casri ah hadda walaal lacagta intee ka imaanay wadanka markuu dakhli leeyahay Soomaaliya wax yaala male daqiiqaha la soo bariyo iyo wax la soo bariyay ay isku haystay hadda Soomaaliya cirbad soo ma saarto hadda tusaale ahaan Ethiopia India iyo China amal gelisay Soomaaliya India iyo China ma rabaan inay maal gashtaan Mareykankan uu ka gaabsanayaa xagga dhaqaalaha ka imaanaya nidaam aan aqaanaa oo dalkeen waa buuxa khayraad ka buuxo dadka la tusaya China la keenaya Ruushka la keenaya iyaga wax dhisaayo waxay dhisaan ma badqaana shaqo abuurmayso okay dhaqaalahan way iska imaanaysaa okay marka nidaamkaas anaga way nidaam jabkii ku jiro waa hadda mar rab inaan sheego laakiin diyaar baan u ahay waa mahadsantahay mudane General oo ku soo noqday qadka telefoonka ay qabsanayna mudane oo ka tirsan baarlamaanka mudane mii maqashaa hello oradeerkii mati arf jooji mudane marka hore waad ku mahadsan tahay waqtigaada qaaliga ah oo aan siisay mudane haddii aan saddex u kala qaadno dowladda Soomaaliya maxkamadda iyo dowladda iyo baarlamaanka waa sharci dejintii fulintii iyo ansixinta adigu waxaad ka tirsan tahay sharci dejintii gobolka Minnesota waxa uu diiwaan gashantaa inaad tahay oday howlgaba oo beeshan oo lacagta SSI-da qaato miyuusa aqligaas ku goobayn aqliga fiyo arrinta iyada ma su'aalaan ku weydiiyay kuma caynine waxaan ku dhahay Amerikaanka diaper bay ku xireen Soomaalina sharcigeeda dejisaa marka arrintaas aan soo dib deg leenahay inaan su'aashaas ay ku weydiiyeen reer Minnesota maxaa arrintaas ka leedahay anigu aqoontaydaan ku tegay halkaas haddaan halkan aan ka sharci fiber inaan xirto iyo exercise inaan qaataan Mareykanka joogo marka waxaas inaad joojiso weeyaan macnaheedu ma hadda warqadii yaalo oo home care ka tirsan tahay oo Minneapolis oo SSI lacagta lagu siiyay Soomaaliya oo hoog iyo habaarka qabtane waxaad ka tirsan tahay baarlamaankeeda sharciga u dhijisaa intaas uun baa ku weydiin kuma cadaabin
وروسطي وأنا مقرأ نوضي نيو دلقة xanaaqo mudane okay mudane waa mahadsan tahay general waawaray ayaan kusoo noqon doonaa general waawaray horta mis taqaanin mudanaha baarlamaanka adeer wax dhaabar xirta anigu barashadooda iyo aqoontooda uma baahnin in dhaabar xirta see u bartaa dhaabar baa u xiran drop it DJ وما سنتي عبد الكريم مدني horta mis taqaani adiga generalka wallahi aqooni inaan bartani ka marrabo haya runtiina siyaasadiisa baan galay waayo dadku dilaa maqlaan qof dadka dilaa ma rabo inaan barto oo generalka ma taqaan horta mis taqaani horta ma aqoontiisa ma barrabo qof wax dilaayo ana shaqo dhis kulli okay general adiga mis taqaani adeer waa isbaranaynaaye bal Soomaaliya mo okay waa isbaran okay qadka telefoonka ayaan qabsan doonaa dadweynaha ra'yiga ay ka qabaan maadaama aan isu keenna general waaware iyo abaabin abaa xaaji oo 2020ga u tartami doono loolanka madaxweynenimada Soomaaliya walaal mi maqlayda telefoonka afka saar TV-ga dami caruurta aamusi maxaa la dhihi jiray waqti badan walaal lama hayno how dhawaan filinjeerka giriir uu sameynaya isdhaqsay isfooluday isfalamiciisiyay su-aashaada waa maxay walaal hallo qadkaas waa ka baxay generale hadda hadduu Uhuru Garden Uhuru Kenyatta ayaa qabsaday Kenya Soomaaliduna way taageersan tahay oo shoti shala lagu dhawaaqay xalal lagu dhawaaqay faa'iidada uu Soomaali u hayo maxay tahay Uhuru Kenyatta مسواحيلي محمد عبينا كي سواحيلي وحنا ما هي وحنا هاي مال وحنا هاي مال أو هذا عيد مدو كيننا عيد مدى وحنا يهين واردي هيا أنا كات ملترق نمكي بس كعني وعيد الحجلي وادت كين وصومالي واقرتي ملكياتي حولها كل العشرة أيبو وأنا راعي وحسن غير عليها أو هذا ما وقف كبار تعمر أجار كذا وكونه إلى عليه ملك أنا سواحيلي حنا قبل مياه أوكي waxba kama qabo qadka telefoonka ayaan qabsan doonaa walaal magaca xagee ka soo waxtamaysaa su-aashaada boobsi waqti badan ma hayne ya waa hadal halo qadkaas eeya cuna miya ka soco su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo waxay tahay mudane halo walaal mii maqlaysaa su-aashaada waa maxay walaal su-aasheedu waxa weeye nin horta adigu maxaad maalin walbaba aad waxaan adeer macaan aad usoo daysaayo wax fiican aad usoo dayso oo dadku faa'iidayaan waxaanaad soo daynaysay waa maxay adeer aniga ma soo dayno programkan free style la yirahdo horta koodhe haddaad ka heli ma iska gudbisa adiga maxaa kugu dhigay America intaasoo janal ay leedahay ma iska fiirsi janalada kale su-aal ma qabtaa mise anaa ugu mashquulaysa adiga ما أقدر معنا وسكر معنا سكت داوضو صومالي أنا أفكار قلادنا مفهم معي وحفي عن سودة يا أقدر معنا وايد وعن كوسو دندونا فنان عادل لوج على استي ساسا نو بلانا دروب الدي جي gabagabadii ayaan soo gaarnay programka horta marka hore waa maasantahay general waa waray guuleyso ma fahamtay aad u maasantahay mudane baabin aba xaaji adigan aad u maasantahay guuleysan ku leeyahay Soomaaliya ugu dambeystaydiisa freestyle camera cidii dhibayso howl u taalo waa cidii kor qabto howl u taalo waa waxaanay ta camera waay waxa maasantahay drop DJ